waana laga diiday lacagtii inaan ku iibsano wax oo ay bakhaaradu naga qaataan dollar la kaalay bay yiraahdeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مالين وناكسن باوينتن وحرين halka waxa kugu soo gudbin doona afar arrimood oo caqabad waa sii jiritaanka shilinka Soomaaliga. Isticmaalka shilinka Soomaaliga waxa soo wajahday caqabad aad u badan. Dooyinkii u dambeeyay qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya waxa ka jira dhibaatooyin la xiriira lacagta shilinka Soomaaliga iyadoo meelaha qaar laga diiday isticmaalka shilinka Soomaaliga. Ganacsataan nahay waana laga diiday lacagtii inaan ku iibsano wax oo ay bakhaaradu naga qaataan dollar la kaalay bay yiraahdeen. Hadaba maxay yihiin caqabadaha jira oo halis u ah jiritaanka shilinka Soomaaliga? Lacagaha been abuur tan iyo markii burburtay dawladda dhexe sanadkii 1990 waxa meesha ka baxday awoodda dawladda ee u taagnayd maamul. Taasina dalka waxay u horseeday in lacagta shilinka Soomaaliga qiimaheedu uu hoos u dhaco isla markaana ay suuqa si fudud ku soo galaan lacag been abuur oo door weyn ka qaatay qiimo dhaca sharafta lacagta shilinka Soomaaliga ku jimid. Shilinka Soomaaliga oo wali laga isticmaalo qaybo kamid ah Soomaaliya oo lacagta dawladda burburtay xilligeedii la isticmaalayay iyadoo ay jiraan lacag cusub bedeshay tan iyo sanadkii 1990 sanado badan shilinka Soomaaliga qiimo ayuu lahaa. Taasina waxa ay ka dhalatay dagaaladii dalka ka jiray lacag oo cidna aysan maamulin. Isticmaalka badan dollarka lacagta Soomaaliya suuqa ka sii baxaysa ama deegaano badan laga joojiyay waxay saameyn mug leh u geystay shacabka miyi iyo magaalada ku nool. Waxaase hadda booska shilinka Soomaaliya si aan rasmi ahayn u galay dollarka Mareykanka kaasoo hadda lagu jaangoynay wax kasta oo badeeco ah. Isticmaalka dollarka aad ayuu u baahan yahay meel kasta oo Soomaaliya kamid ah iyadoo xitaa seeladaha xoolaha lagu kala iibsado ay tahay dollarka Mareykanka. Soomaaliya ayaa hadda si weyn looga isticmaalaa dollarka Mareykanka kaasoo sababay sicir barar. Lacagta dollarka waxay si gaar ah u saameysay dadka danyarta ah ee xogsatada ah adeegsiga lacagaha danbaysan ee moobilka. Inta badan dalkeena waxa ka jira shirkado isgaarsiineed walow ay fududeeyeen tirada lacagaha telefoonada taasi waxay caqabad ku noqotay dadka danyarta ah markoodii hore biliitay ayaa ah ugu nugul maadaama markoodii hore aysan haysan dollarka maadaama shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta Soomaaliya ay fududeeyeen lacagaha telefoonada isugu diro waxa dadka aad ugu sahlanaaday inay isticmaalaan tan moobilka taasi oo ay ku gutaan dhammaan baahiyadooda. Waxa la gaaray meherad kasta oo Soomaaliya ku taala laga helay adeega lacag dirista wax ku iibsan karta xitaa kuwa yar yar ee shaax lagu iibiyo. Arrintan waxay caqabad weyn ku tahay sii jiritaanka shilinka Soomaaliga iyo muhiimadiisa. Haddii aan intaan soo gaartay waxay ka dhigan tahay inaan muuqaalka dhameysatay. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo kamid noqo bahwaytan ugu xiran muuqaalkan inta suurtagal yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan